السلام الله عليكم ميل كستو الدنيا ذا كجوكتان ولكن ندرس حسن محمد بيج كاga daawanaysa درس قصة بيج official muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qiso ku saabsan aabuhu marka uu leeyahay laba xaas taasoo ay la micno tahay xaaska minweynta iyo xaaska minyarada saameyn intee leeg ay ku yeelataa ubadka ay labada xaaska minweynta iyo xaaska minyarada ay u dhaleen muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa saameynta ay ku yeelato ciyaalka qisadani waxay ku bilaamaysaa sida tan runtii aabuhu marka uu ka yimaado guriga minyarada waxa uu yimaadaa guriga minweynta taasoo uu is yiraahdo bal minweyntii u tag hase ahaatee minweyntu waxay la bilowdaa dood iyo hadal aana joogsanin taasoo ay ku dhahdo waxaa tahay qofna nacay oo waxaad ag joogtaa qolada kale ee minyarada ah runtii aabahani marka uu xaggan yimaado minweyntu waxay ku bilowdaa hadallo aana joogsi lahayn taasoo ay ku leedahay annakiyo ubadkayaga ma danaysid ee waxaad danaysaa reerkaa kale iyo ciyaalkooga runtii aabahani marka uu meeshan yimaado hooyadani waxay ku bilowdaa doodda aana joogsanayn hase ahaatee isagu wuu iska dhegaystaa doodda minweynta taasoo uu ku yidhaahdo may ee cidna uma eexdo ee si siman ayaan idiin dhaqdaa labadiinnaba taasoo hadallada uu ku leeyahay minweynta oyna marnaba u cuntamin minweynta taasoo ay mar kastaba la soo taagan tahay maye annaka waxba nama tartid waxbana nooma qabatid ee kuwa ayaad wax u qabataa kadib waxa u yeedhaa wiilkayga taasoo ay ku dhahdo wiilkaygiyow aabbahaa maaha qof wanaagsan waayo aabbahaa minyarada unbuu daryeelaa koolkooliyaana innakana meeshan ayuu inagu ilaaway runtii maamadani waxay ku dhurtaa ilmahan yar nacayb ayna aacsiinayso aabbihii iyo reerkaa kale taasoo ay u sabab tahay maadaama uu kan yari uu yar yahay taasoo ay ku abuurayso nacayb inuuna reerka walaalna laahayn waxbana ayna ka dhaxayn runtii kan yari wuu la yaabaa oo wuxuu ku yidhaahdaa hooye maxaa dhacay laakiin waxay ku dhahdaa waryaahe miyaanad ogeyn ina uuna inoo iman aabbahaa marna uu marmarun inoo yimaado ma waxaadnad aaminsan tahay inuu aabbahaa idin jecel yahay idinma jecla ee waxuu idinka jecel yahay faamilkaa kale runtii kan yari wuu la yaaban yahay hooyadii waayo uqdad ayay ku abuuraysaa ilmahan yaryar waayo waxay doonaysaa inay ilmahan yaryari aad u nacaan ugana dheeraadaan walaalahood iyo faamilka kale taasoo marka uu yimaado aabbuhu guriga minyarada ay si fiican u soo dhowayso kana waraysato faamilkiisa kale iyo ciyaalkiisu sida ay yihiin waayo minyaradani mar kastaba waxay ku hamidaa reerkan kale iyo wanaagooga hase ahaatee aabbahani wuuga sheekeeyaa oo waxuu ku yidhaahdaa isagoo u xil qarinaya minweynta dhibaatadeeda wuxuu ku yidhaahdaa waa gabadh iska fiican haa maasha allah ilaahay meeshu gabadha minyaradii runtii way ka duwan tahay gabadha minweynta oo gabadha minweynta waxay u haysataa inay gabadhani ka dhacday ninka hase ahaatee gabadhani waxay u haysaa minyaradu gabadh iyo mid yar oo isaguna aad u yar taasoo ay uga sheekaynayso gabadheeda ina ay leedahay walaalo kale ana aabbaheed dhalay walaalahaas kalena ay joogaan gobolkan iyaga u dhow taasoo gabadha yari ay ku qanacsan tahay hooyadeed talooyinka iyo walaalaheed inayna marnaba uqdad u qaadin oo ay wada dhasheen runtii minyaradu mar kastaba waxay ku ababisaa ciyaalkeega nolol ka gedisan ta ay minweyntu ku ababiso ama ay ku koriso runtii waxaa jira dad badan oo faamila hase ahaatee ciyaalkoogu ay adduunka iskugu necib yihiin ama walaaluhu taasoo sababaysa inay hooyo kastaaba kuwa kale uqdad ku abuurto ay dhahdana walaalihiin maaha taasoo marka dambe ciyaalka dhibaato aad u weyn ku keenta maadaama hooyooyinku ay ku abuureen uqdad noocaas oo kale tanna waxay kuu tusaalaynaysaa qof kastaaba inaana
qofkiisa loo dhaamin oo qof kastaaba uu qofkiisa yahay. walaalka hadduu xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahayba mar kastaba waa kii kula dhashay ee maaha mid shisheeye ah. muuqaalkan intaa ayaanu ku soo afmeeri doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.